حالة روحان أخرستي بوك ليراهو How to Attract Money من أيرشا أيا قري أو ليراهو جوزيف ميرفي تي waxa ay soo jiitay meel uu ku leeyahay lacagtu cid jecel bay u timaadaa waayo waxa jira dad badan oo markay arkaan qof 5 sanadood ka hor ahaa Xayraan ibnu Xayraan ka bacdina taajiray qofkaas markuu qofka kale taajiray uu ka hadlayo wuxuu uga hadlaa si uu dahabaarayo wuxuu oranayaa ninkaas 2 sanadood ka hor Xayraan buu ahaa anakuna shahaadi jiray lacagtiba bedeshay lacagtibu ku kibray yaani isagu shakhsiyan lacagta wuuna doonaya wuuna caayaya qofkaas ay ka hadlaya ninka isbedelay wadcigiisu isbedelay suudana lacagta ku keeno laakiin waxaad u hadlaysaa ama wuxuu u hadlayaa qofkaas si uu ka xanaaqsan yahay ama uu ka careeysan yahay lacagtan ninkan bedeshay marka lacagtu dadka noocaas oo kala horta way ka fogaataa lacagtu waxa hela dadka magnet u leeyahay lacag helaan dadkaasna badanka way shaqeystaan mar walba maskaxdooda waxay ku shaqeysaa hab wax u sameeyay laha balaas wuxuu kale ku sheegay buuga in qofku markuu aaminsan yahay inuu wadcigiisu isbedelayo inkastoo waa nin Kristana laakiin haddana iimaankii ama waxbuu aaminsan yahay ku saabsan xagga ruuxaaniyaadka marka qofku markuu qof aaminsan inuu hadafkiisa gaaraya uu yahay uu yaqiin ama uu hadafkiisu si cad ugu muuqdo maskaxdana inta ku program gareeyo wax kale maskaxdiisa gelin qofkaas hadafka caadi buu gaaraya wuxuu doonaba ha ahaado wadcigiisu wuxuu ku tusaale qaaday qodobkaas inan yaroo 12 jira 19 jira oo reer dan yar ah ka dhashay reerkaasu ma awoodin in xataa jaamacad ama college ay u diraan marka inankaas wuxuu sameyn jiray markuu iskuulka tago galka dambe kale wuxuu tagi jiray dhakhtarada clinics buu tagi jiray clinicskaas uu masixi jiray meeri jiray suuliyaashu meeri jiray marka ishiisu mar walba waxa ku soo dhici jiray ishiisa shahaadooyinka dhakhtarada xafiisyada clinicooda Suudaan niyadiisa wuxuu gashaday in isaguna magaciisu halka ka muuqan doono uu dhakhtar noqon doono sidoo hawshii u waday markuu niyadiisa inta gashaday ayaa dhakhtar kamid ah dhakhtarada clinic leh ayaa wuxuu u fiirsaday firfircoonidiisa wuxuu u fiirsaday si uu u shaqeynayo energy uu ku shaqeynayo daacadnimadiisa uu ka yara dalacay meeshii nadaafada wuxuu u dhiibay inuu qalabka dhakhtarahani waxa uu maxaa la nadiifiyo loo yaqaan sanitizing dabeetana markuu qalabkii nadiifinteedii qalabka dhakhtarka markuu nadaafadeedii iyo soo ilaalin lahayn soo kala soo cilaa u bartay dhakhtarkaas inanka hawsha u dhiibay inankii isagu laftarkiisu aaminay inuu ninkaas noqonayo wuxuu doonayo inuu qoro dhakhtarkaas dhakhtar kale la hadlay oo wuxuu siiyay scholarship caafimaad inankii sidoo u waday hawshiisi jaamacadii buu galay qaybta caafimaadku galay uu ka soo qalin jibiyay doctor ayuu noqday ama qof dhakhtar uu noqday marka wadcigaagu wuxuu doonaba ha ahaado maanta hadaad macluulka xaaraysid laakiin aad aaminsan tahay inaad waxan ka baxaysid inaad halka gaaraysid ilaahay wuxuu ku sakhirayaa wax walbo wadada ku gaarsiinaya laakiin hadaad tahay qof negative ah oo calaacilka badsada ama sida loo yaqaan qof yuus badan qofkaasu wixii macal ilaahay ku sakhirayay inay ka fogaadaan baa dhici karta mar walba naftaada khayr u sheeg wanaag u sheeg ilaaheenina jecelaayna abuurtay adduunka inta la eeg abuurtay ayaa amarkeena ama xaalkeena gacanta ku haya marka ilaahay wax weyn weydiiso jidkii loo mari lahaana waxa weyn dadaalkii laga rabayna ka soo bax maalintaydii waana assalaamu calaykum